wadayaal meel kasta aad joogtaan baa ku soo dhawaada barnaamijkeenii kulanka waxmatarayaasha ama kulanka fidmowadayaasha Soomaaliyeed oo aynu hadahan oo kale ku falaqeyn jirnay siyaasadda Soomaaliyeed barnaamijka oo saacadahan oo kale aan idin soo daadiyo anigoo ah mudane wariye Habow ayaa waxaanu ku wareysanaynaa maanta madaxweynayaasha labada maamul ama labada dawlad goboleed aan ilaahdee mudane umad qaxiye oo ah madaxweynaha dawlad goboleedka غير معقول iyo madaxweynaha dawlad goboleedka jahawareer mudane Janako Harad iyo waliba sidoo kale aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku takhasusay arrimaha dawladnimada iyo siyaasadda mudane Yaasiin barnaamijka ayaan waxaan ku eegi doonaa siyaasadaha labada maamul ka dhaxeeya iyo hirdanka ay isku hayaan degmada isha murma ka galay oo labada maamul ciidamadoodu maalmihii u dambeeyay ay isku horfadhiyeen isla markaana dagaalo dhowra ay ka dhaceen barnaamijka waxa ay nala haduu eebeedmo saacadaha dambe ama saacadaha dambe waqtiga dambe soo gali doona khadka telefoonka daawadayaasha TV-ga waqti lumis mudanayaal markiina koobaad dhamaantiin ku soo dhawaada TV-ga waqti lumis haddii aan ka horeeyo mudane madaxweyne Janako Harad hirdanka labada maamul ay ku hardamayaan degmada isha murma ka galay eedeedii khaladkeeda yaa iska leh xageese ka bilaabantay murankaas waa war fiican waa su'aal fiican baa ka wada raaliga hada niyahow ma jiro herdan wax laba qof ka dhaxeeya oo kii xoog bataa u qaadanayo ba herdan la yiraahdo tani waa xaq dirir iyo duulaad col iyo horar baan la ku yahay anaguna tay waligayana waan isticmaalintay xun tahay waan istifaaci jirnay wanaagna nala kama bad oo waana la yaqaan daris wanaagga waana ku yaqaan laakiin ma garanaysaa maanta waxay joogtaa bariya ma joogto maanta ninkan waxa u soo horfariistay inaan la dhexdhexaadiyo maaha waa inaan ahay nin ma garanaysaa isku filan oo tolkiisa waxay u dirsadeen u darban inaan ahay inaan tuso waa inta kaliya wax herdanina ma jiraan col iyo horar buu igu yahay mudane umad qaxiye adigu arinta xageed ka taagan tahay khaladku say yaa wada ayaad soo kartaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انتهى الدبدين والسلام يا دمان أمة الصومالية الحلومة الأنية في عالمي وقت اللومس أما في الموضة waxaan halkan ka salaamayaa umada aan matalo maamulka غير معقول horta qof weyn hadaa tahay inaad iska hadashid wax laga fiican yahay waxa kana su'aal xigta intii qarjiray quruux waa jiray dalkan anaga hore u soo talin jirnay maamulkan iyo waxaan ka hadlayo waa dad anaga nagu hoos nool yani soodintan adduunka soodin baa jira soodintan qortooyooyinkii dadku gumaysto hore nagu gumaysan jiray baa dhigay 300 sano hadii dadka midkood la soo saaro DNA laga qaado awogay konton afraad baa laga helaya laakiin wiil yar oo iska soo orday waxyaalo madow soo kasoo yiri Janako Harad baa la dhac aniga umad qaxiya la yaadaa sanadka maanta aan nin walba reerkiisa dabada ka wada إن ريك سولين ودينين بنقطه بتكلم كل شيء ما ممكن أنا جالس كله ممكن أنا جالس كله وما دام السجى يرتوه ذي أهل كودي علامته ذي حوله هذا مسؤول كنا بكسولة يوالي سوى ولا سوى هردمي وأصلا نقطة لا سوى في السابق خربا وأصلا نقطة إن تاريخ ظاهرة دقمته إلى هيد وحن ربنا سيو أقوياء ياسين وضركها لبضني وربنا نلوم مدحونياله سوى حلينا وضركها ومضمعتها أو صوماليات بدقات يكونوا sidee baad u malaynaysaa in ay ku hirgelayso nidaam silmiyo dadku noolaadaan haddii xaalku basidan yahay madaxweynayaasha basan yihiin labaduba way hayriye hankoodu ma aha inuu noqdo hoos waa inuu kor noqdaa tuulay ku dagaalamayaan dhulka Soomaaliyeed maanta la qaadanaya waan bahal walba dacalka ka soo boodaya dacalada laga jira aflagaad uma muuqdaan ayaan qarsoonay ma u kaadiya hadalka waa iyagu intay isu muuqdaan dad baa ku maqan iyaga hankoodu waa inay iyagu ma garanaysaa saximiyaan wax yar tuulo yar maala yacni dad wada dhashay wada degan yihiin isku qabtaan shisheeyuhuna badaheeni dhulkeeni ay ku jeedaan labadu halku waa in la heshiiyo Soomaali kala maari mayso waa in ma garanaysaa markaa igu noqo horta inay yarbaad maanta waxaad wixii hal hanin ileeg aniga ama seed xiraan inuu meesha fadhiyo gacan baan saar lahaa Soomaali nimadu sheegay xagay taala gaani Soomaali gaani meeda Soomaali yaa kula Soomaaliya bahal weeye ma bahal baan Soomaali ka dhexgalo kan cirada haduu aqligaaga leeyahay ana ma doonayna la hadlo sababtoo ah dadka kala dilaysa meesha dadka isu keenay anaga waxaan rabaa inaan siiyo mudane Janako Harad degmada isha saxar ma ka galay hadda yaa gacanta ku haya walaaltadiyo waxa ii sheego
أنا هرت كركرت كوجلي معي اسم مكاجل هرت إن هالكن لقى هذا هذا هرت أنا شرف دل يبقى دل بيتا عيبنا إيتا صارت يقول فلان ويقول سلان كودي لكن وحنا أنا تكامرة كبر باحو هذا ودي وما قاعد يقول يسوع وأنت كليا واحد كركرت أنا كجل أنا ويا واحد هذا أنت كعنت كويس ولا أنت ربك عنت كويسة ولا جد مالين هبين كمان المقنان وأقول أشوف أنا سويت إنه حاجة مرتاحة بلي كلمة ده أيوة دي أنا أنا ما التاريخ ولا هاي جوبيستي بتوقف في الانتهاء كان جوبيستو اللي قاعد معكوك الصوت هاي كان قلنا الشيء ما تقول صوت barnaamijka si looga faa'iideysto dad badan bayna daawanaya ayar carruur bayna daawanaysa ubad bayna daawanaya ummad bayna daawanaysa أنا أوضح محل أنا أوضح كوان أنا دلني يكوان مسؤول كنا يبان مسؤول كنا سومالي علن علن كلفتك السياق كنا نك علن كنا متقن أنا هو أوجي نك علن كنا وريا يا كل على مدي على جانب لان دير أنا نيجي هنو ما بتشرب waxaan siinayaa وريا الله أنا دول كياس كويستا يا سل لو هيستا هذا كان عندنا فهم لا الصومالي واحد كويستا من الصومالي واحد هيستا يا الله دغالمaya يا دول laga qaaday ya qor loo wata ونما شيشيا بيسوا نما Soomaaliya muhiimada dawladda lugadan doonaya nimana kale soo fadhiya يبقى تشوف كذا هذا القرب ما قاطع laba nin oo Soomaaliya oo arag إثيوبيا أنا عديسين أنا كلاي أديس هذا الوعدي ملسكي بختي باش شيء أنا أقول كلاي حتى حوينا حسن على البشير يا سودان قبائل الغم ده بتشعل اللي مثل يابو وتشعل قصح أنا حسين قصح وان يا adiga taariikhda marka dib u raacday ninkan wuxuu yiri madaxweyne ra'iisul wasaare hore dalka Itoobiya dhintay uu cadeeyay dhulkan uu ka tirsan yahay maamulka ama dawlad goboleedka Jahwareers aan la qeyr macquul sidoo sheegayo adiga marka taariikhda dib u raacday maxaa cadeynaysta horta wariya waa mahadsantahay caawana waa ku hawlay raalaha laakiin waxa la rifulay wax ka cala weyn waxa uu dhirtay isugu xoqayo uu ogyahay nabarkaygu yaqaan anu ma bakhooranayo Suudaani iyo wala Itoobiya waraadar anagu Kenyaati baan nahay kugu mana faanin Nairobi anaga aanu isirkayaga kaab ka soo jeednaa ma Addis Ababa gaadha 300 sano jirta Addis Ababa oo boqortooyo ka jirta imaw isamarum ka galay banaankeeda ka qaylinaysa gudaha soo gal أنا بقى عندك كويستا المكاعب بين عسانتي نكعب بيسوينا في سورة يرجع كنا يسكب داع وكذا حوجا وكذا برامج يعني يرضون يقولون إن دول كي سوماليات مدن أقوين يعني اسمه هايستان يعني اللي يراهدوا إثيوبيا بحنيسة كينيا بحنيسة وقد يبدو دتك ضمير دمير نقضي موت إثيوبيا أنا كان وكذا إثيوبيا كان كود ما هنا سومالي شيسو واحد دونيا ما بربر كودا دم بوجوده ضد قالله ضد نماله كرتيله استعل انت بو لا دغ لي ويديدين افر سوكوري ده افر كو كان او هرسيديا بربرك Soomaaliya كو كان او هرسيديا افر دغدغ كينيا Ethiopia dooni ma yan nabadeena burburkana doonayaan iyaguna ma dareensana waxaan rabaa inaan hadaba idin weydiiyo labadiinaba dad Soomaaliyeed baa tiin ummad Soomaaliyeed baa dhulkii ku nool ma isku daydeen inaad waan aad meeshii ka furtaan maxay tahay shuruudda aan ku horeeyay ummad bixiyo shuruudda aad ku xidhaysid maanta in waan la furo maxay tahay shuruudda ku xiran dhakaaga niyo wasta aad bal ma santahay Soomaalida xukuma hada qoor xiro isugu timi qalaad baa waa ugu bariya anu meeshan Soomaali oo dhan baa shirdiday waa la islaayay waa la kala tagay nin waliba meel buur ka dhistay nin ogoray ma jiro anu qabiilkayga iyo reerkayga anaa u taliyaan aniga nin umad qaxiyaan wahay mana ogolini kale inuu aniga agteeda ka jaqjaq yiraahdo waxa kan waa boqortooyo iska soo haysatay joogtay waa boqortooyo iska soo jirtay waa ku imanna mudan adiga soorta yaa ku yaqaan amigo soo gaar yeeso waa boqortooyo soo jirtay waxaan ka abaalan dhibaatada dhacday burburku markuu dhacay qof walba madaxweynuhu sheegtay maxaad waanood ku xidhaysaa inaad maamul inaan dalka anigu taliyo awalan in aniga wax laga weydiiyo in Soomaali oo dhan aniga u soo doofasho ilaa ما حالي نما تلينشين هدو ترى نما تيجي شين باتكا ما يريته شن كوارا دون أنا جيت نيا وإنكرديبل يا وحنا إنكرديبلي وعادي هذا الكاس واحد سينا يا مدحوين شن كوارا ما حيت شروطات كحد سيد ما أنت وان وصل طبعا إنه بتقولي دقيقة إيش سحر مخاقل كور مرسنا يا هل ما وان مغلي شري كل هاي سكهست هيرك جورين هدبت شوكت هذا إيش مرق مخاقلي يا فارهلا يا ريمهلا يا reerkayga maanta dhan ku haysaay anu reerkayga waa ka faana qaran baan ahay anu qarankayga iyo isam ruqaad jees baad tahay see qaran ugu qartaa war eesana leedin waliga makacad iyo mid ku sheegay horta dhigiso maama ku xitaa nin futo tooba saxaru ugu tagaa istageysta
أنا ودبر ما هي نفط توبة سحروا وتجابلي أنا يبقى عرور لقديمي waxaa ka raaligelinayaa daawadayaasha TV-ga waqti lumis in ay dhagahooda kusoo dhacaan hadduu eeba ku roon yahay kelmadaha foosha xun aniga oo mar kale su-aasha ku celinaya mudane ee Janno ku Haraad oo odhanaya waa maxay shuruudda ku xidhan maanta in deegaanka nagu soo dabaal nabadgeliyo dadkeeduna ku wada noolaadaan deganaan adoo soo koobaya okay waa ku soo koobaya walaal deegaanka walaal isha ma ka galay xilligan waa nabad xilligan waa nabad citahay ila igu haysataana ma jirto ninkani banaanku ka qaylinaya ma garatay adeer horta deegaankani waa nabad horta deegaanka hadaad wada qashir ku soo laandeer loo ma hawriya nabad weeye deegaankaygu anaana u taliya gacantayda ku jira gortana ku gali maayo waxaan geli doonaa khadka telefoonada iyo daawadayaasha TV-ga waqti lumis oo runtii aan filayo inay dad badan khadka ay ku jiraan si ay wax uga ogaadaan bal maamulka iyo ma garanaysaa dhacdooyinka ka dhacaya degmada isha saxar markaa gale isku hor fadhiyaan labada ciidan ee maamulka Jahawareer iyo maamulka qeyr macquul oo ciidamadoodu ay halka ay ku sugan yihiin waxaan gelinaa khadka telefoonka oo horeeya halo assalaamu calaykum khadkaasi waxaan filayaa in aanu weli aan ismaqlaynin mudane aqoon yahanee waa soo noqonaa waanta in lagu xidho anaa wadanka u talinaya maxaad ka qabtaa horta anu su-aashii ugu weyn meesha taallaa waxay tahay labada tani waa Soomaali maanta nin cadaan hadduu meesha tan yimaado su-aal la weydiiyo waxay odhanayaan Soomaali baanu nahay hanka ay ku leeyihiin Soomaali baanu nahay inay ku heshiiyaan oo ay ku midoobaan maxay ku diidayaan ninna uma yaqaan waxa kana sheegayaan gobolkan uu taliyo kan gobolku doonayo ninna uma yaqaan marka wax ka wanaagsan inay midoobaan foolada ayaanu gelaynaa dhageystaha koobaad ayaan siinaynaa khadka telefoonka ku jira halo assalaamu calaykum walaal magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlaysid waxaan rabaa inaan fikirkeyga soo jeesto ninka la yidhaahdo sheeg wata sheeg maamul goboleedkan la yidhaahdo unugu magac jinni baan noo aqaanaaye oo waxa weye nagu haysta dhulka reer dudaaye raba inuu keeno dhulkaan aan deganahay nagu ab iyo sinji iyo farac baanu leenahay waxaan aad u taageerayaa Janno ku Haraad oo madaxweynaha iyaga ah haddaanu reerkiisa nahay aad iyo aad baan u taageersanahay maamul iga raalow mudane daawade umaanaan talagelin in maamulka lagu taageero khadka telefoonada dadka soo galaya ay maamul ku taageeraan waxaan rabnaa inaan aragti helno fikrad helno xal u raadino degmada xalku muxuu yahay ma leenaysaa xalku wuxuu ku jiraa reer Dubai waxa weeye meeshooda ay joogaan waxa weeye langab waxa weeye ma yaro garan karaan dhulkooda in reer Dubai la keeno Soomaalidu waa kala jirtaa waxa weeye Soomaaliya la kala dhulkana waa la kala yaqaanaa xaq ku aadamaya xaq waa xaq leh kolka wala soo ballan si wanaagsan buu shaqeeyay ninka waxa weeye lagu sheegayo reer bixiye oo waxa weeye asagu uu taagan ba waxa weeye dadka dhaxdigo oo dadka walaalaha isku diro waxa weeye waxaan ogolaan karna maaha hadduu joojin waayo waxyaabaha wadana TV-ga soo fariisan maayo meel dambe uu maamulo la heli maayo aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah daawadayaasha TV-ga waqti lumis waxa lagu eedeynayaa inaad horta qofku hadduu reer yar iyo jifi yar iyo laangaab hadduu yahay qofku tolkiisu dabada soo gashaa moogta adi laakiin adiga u dhaad miyaadan maamulkii dadkaagii wadanin bees horta qofku hadduu laangaab yahay inaalbu qolo reerkiisu soo kaxaysaa laakiin nin laandheero oo qoturto banaan tagay dadka ummadda oo dhan ay og tahay oo qaran noqon kara inaan nahay waa ummadda oo dhan baa markhaati kaca qofkan ay soo horfariisay haddaan meesha ka xushoon waa dhabanaanin lahaa dhabanaanan ka jirnaa adiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي بان إدين سلامنا وكوحدة حديقها يوروب وهاد هذه قوارقة براتين أرميه آد حيسيسان ووعي قلين إيو إسوغو شرفان إيو مقران إسايي وحيابها مركا تاغن حالadaha مركا تاغن إيو مدى صوماليات كترجمية فيلم كان هذا داوتين ولا ليال وجيد كانوا كلين هاي ما أهن عيد قارة ما أهن قولا قارة ما هن قبيل قارة إيو حالة وعي واقعة أو جرا حالة تاغن مانتا لابنين أو صوماليات أو هل تولو كوة دا شيء أو هل ميل كوة دا شيء أن ميل إيكو كلا دوين ميل إيكو كلا تكسين لا أقون وهدنا أن مدنا مد أقولين لكن كو قناعسان نين ديبادات ويرستيس إنو إيجا وكلا تبقى
ku faraxsan sidaas moodaya raganimo ma garanaysaa laakiin anagu ujeedka saxda ah inta anaga intii wax ogba iyo intii wax fahmaysaba waan ognahay nimanka is haystaa ma ahan dan umadeed ma ahan dan reer ma ahan dan qoys ee waxa weeye dan shakhsi nin walba wuxuu rabaa wuxuu u fikiray sidoo ku ilaashan lahaa kursi yar ama jaga yar ama mansab yar wuxuu dhaafsanayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaanu leenahay marka arrinta laga dhiidhiyo Soomaalidu waa walaal waa hal hilib waxaana ku soo dhaweynaya walaalkay Khaliif isaga inoo si tacliiqinaya ma garanaysa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh waxaan oran karaa wixii aan oran lahaa bay sahal baa yiri muhiimaduna waxa weeyaan in raggan saaxiibada nahay oo runtii ku caan baxay inay ummadda soo gaarsiiyaan fariimo aad iyo aad u qaaliyo oo mujtamaca iyo baahida ummadda ka turjumaya inaan maanta la wadaago barnaamijka aad iyo aad bay qurux badan tahay waan ku faraxsanahay waxaan leenahay sida uu yiri sahal ummaddu waa ehel waa walaalo nin danaysta oo siyaasiya oo shakhsiya oo amar laga soo siiyay meel ka banaangeeyo Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed maaragtay danteedan aan wadinin in loo nuglaado dhagaha la siiyay waxay tahay ceeb iyo hungo iyo taariikh xumo lagu sameeyo sirka Soomaaliyeed ma geyno ummaddu meel ka soo wada jeesato danteedana ha garato aad iyo aad baad salaamatiin salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام يا دمان مدة الصوماليات ميركستاي كسوغيهين مرة بعد وحنا لنا عيد وناكسن marka xiga waxaan halkan ku soo gudbinaa barnaamij aan sida hore noogu bartay barnaamij wacyigelina barnaamijkan wuxuu ka hadlayay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ma aha niman iyagu dan Soomaaliyeed u jooga ama dan guud u jooga waa niman jeebkooda sida rag igu horeeyay sahalka caashiq iyo khaliifka caashiq hore uu soo sheegeen inay yihiin niman yani dantooda kaliya ka shaqeeya waa niman dhiig miirata waa niman aan yani cidna arxam u samayn siyaasaddu waxay ku oranayaan markaad wareysatid ama aadad qofka siyaasiga ama qofka siyaasadda u socdaa wadsan ku siyaasaddu heshiis joogta ama leh ku oranayaan waa hadba maanta qofka gaashto waa calaamatu munaafiq bay kamid tahay siyaasaddu dhan ma laakiin siyaasaddu qayb kamid ah calaamatu munaafiq soo gashaa waxa kan ku goobeeyay oo leeyahay madaxweyne hebel maamul hebel madaxweynaha Soomaaliya kan sidoo wax allaalay wax ka jira ma jiraan kulligood waa caloosho shaqaystayaal nin waliba jeebkiisa nin maamul ka shaqeeya ama siyaasi ama wasiir ama dowladda Soomaaliya haato ama maamul Soomaaliya ka dhisan haato nin walba caruurtiisa iyo ubadkiisa Mareykan marka weydiiso tahay maxaa ciyaalkayga Mareykan iyo bay joogaan adigu maxaad ka qabanaysaa meesha dalkii wax soo baranayaan waa Soomaali habeenkii markay islaanta caruurtooda saxanayaan waxay qaadaan Soomaali tooso isku tiirsaday iyagoo Mareykanka joogay Soomaalinimada niyada kaga jirtaa ku leeyahay macna waa khiyaan oo waxa waxba ka jirin waxaan ka wacyigelinaynaa marka ummadda Soomaaliyeed siyaasadda Soomaalidu inay tahay dameer baan ku rifaanta dameeraad inay tahay ummaddu waa dadka Soomaaliyeed waa dad islaam waa dad isku dhaqan waa dad isku diina waa dad isku afa waa dad isku hela waxaan ka codsanaa marka inay qabyaaladda iyo maamulka beenta iyo Soomaaliya iyo siyaasiyiinta iyo waxa kan wax allaali wax ka jira ma jiraan dantiina qabsado nimankan tuugada shaarbahana la baxa garkana xiira warkoodu yaanu idin gal habeenii maalin waxaan leeyahay warkoodu idin gal والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم هذا اللي انت نرى لها كل رجل هرية يري كوس دراما يعني حاجة ما كنت سنية ان ودن كانوا بربري لبعتهم بضبط نقصدي تهريب تي بينه قد بتسمي قبيلك وحلو بهاي هنا ما كعمل جد بحقوق قبطان الصوماليين هي شيء واحد عن تمالي مثلا سود قال لي سياسيين تنا واحد اللي هذا كان حارق كنا على شيء إنه كيلو كمان من كيلو باستا واحد كان هذا قال يسوي والله من قبل ولتين كوي ذا كوري فيري مات نين قبل عبر لسوجوي كلام مجرى قبيلة أمام كراني ساي هلهان ودوانية dadku isku mid Soomaalinimada haloo doodo garanaysaa qarannimada hal doodo in aad baan idin salaamaya assalaamu alaykum aniga ku darsanaya hal kelmad dastuur reer yar qorteen oo afar tuulo ku kooban dastuur reer yar qorteen oo afar tuulo ku kooban waxba noo tarimaye tashanaa ka wanaagsan ee tafaraaruqa jooja Soomaaliyeed toosoy isku tiirsadayeen halbakiina taageero waliine